السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين بالشو انت Soomaaliyeed meel walba joogtaan maanta waxaan ka hadlaynaa wax ku saabsan caafimaadkuna waa waxyaalaha qofka bani'aadamka ku caawin lahaa kulley dadku yaabi doonaan shaqada iyo tacliimta iyo waxbarashada maxaa isku xiray iyo D-vitaminka waxa weeyaan maadaama joogno dhul cadceedu ku yar tahay markaa waa inuu qofku D-vitamin cuno waa ku qasab markaanuu taa waxaan u arkay inay faa'iido weyn u tahay dadka soo galaya dhawaan ama soo galay ama dadka jooga dhulkan aan ogeyn vitamin D-ga oo waxyaalo dhibaatooyinka ugu saabsan weeyaan oo qofka saameyn karaya noloshiisa oo dhan dadku ma aha sidaan uu research sameeyay waxaan arkay vitamin D-gu inuu meel walba ka jiro dadka dhulalka cadceedda haysta 24 saacadood oo ay dad baan cadceedda isku dhigin dad aan cadceedda arkin baa jira oo 24 saacadood ku jira guryaha marka D-vitaminku waa muhiim maadaama Sweden joogno Safariya waxyaaluhu ku muhiim waxa weeyaan cadceedu muddo yar oo gaaban 2 bilood weeyaan 2 bilood xitaa jirkeenu ma qaato kulley aanu video ka sheekeynaya dadka Swedishka ee dhakhaatiirka oo ka hadlaya qadiyada ama vitamin D waan daawan doonaa oo ka hadlay waliba in Soomaalida laftooda ku dhacday dadka ku nool Sweden gudaheeda Safariya ku nool in dhibtaasi haysato marka badana sida dhibka qofku uu la jaanqaadi lahaa iska difaaci lahaa markuu breast u maado oo ka yaraado vitamin D-gu waxyaalaha keeni kara jirkaaga caafimaadkaaga ku sababi karo waxyaalahaas ka soo yar qaadanaysa ilo degdega oo faahfaahina marka vitamin D-gu waa wax muhiim weeyaan waa cadceedda kullee cadceedda uu yaabay qofku xunaya anuu Afrika ka yimid 45 degree 40 degree 30 degree yaraanta ilaa weynaday vitaminku ka buuxaa jirkayga ma hasla anuu hilib baa cunaa ma hasla badanaa jirku marka qofku yaraasa u dareemo waxyaalo ku saabsan vitamin D qofka u talinaya Soomaalideenuna nin waalan 100 u talisade marka wax weeyaan qofka bani'aadamka waxa arkaysan 100 u talinayso dhakhtarkii laftiisa asoo aadin war waxa cunto waxa samaysaa laakiin waxa la ogaado vitamin D inuu waxyaalo badan oo jirku qofka bani'aadamka ka mid ah inuu saameyn karo oo dib u keeni karo oo qofkuna isma ogaan karo waayo anagu ma naqaano wuxuu yahay ba asalkaba vitamin D-gu wuxuu yahay muxuu qofka duu waayo laba sawir baynu soo qaadanay sawirkan waa daceeda boqolkiiba qofku konton buu ka qaadanaya meel 30 ama 40 xaggana wuxuu kaga kabaya boqolkiiba 30 ama 40 cuntada cunayo qofku xitaa vitamin D wuxuu saameynaya qofka fikirkiisa si uu wax u fakiro positive negative jira marka qofka psychology ahaan qofkiisu xitaa uu soo yara bedelaya fikirkiisu marka vitamin D waa waxyaalo cajiibka dadkeenu ilaa ma garan oo dadkeenu waxa weeyaan dadka aad u cuna hadaan eegnana hilibka aan wax kala cunin sida ukunta beedka ama cunin kalluunka oo aan cunin maxaan kula carrot tufaax khudradda aan badsan ama xitaa caanaha badana caruurta yar la siiyo laakiin qofka weyn lahaa aanu caano ka soo dhigay uma baahni oo waxa ka mid dhul geel iyo xoolo yaalaan vitamin D anu waxa ka soo qaatay qoraalkan Savaniska Medel Verket waan ka soo qaaday oo de qofku u gali karaa kulli website-kan waa gali karnaa waxay D-vitamin regular calc blansan iyo skeletal tendon calciumka buu balansareeyaa calciumkan caanaha laga qaato oo lafaha iyo ilkaha iyo wax walba qofku maartay ilkaha xitaa ka yar burburi kara ama ilkaha saa ka nool presbo vitamin kan oo shaqricted waa ingiriiska hukan husbaan dadka yaryar caruurta yaryar wax loo bixiyo ingiriiska hukan baa ku dhici kara vilkat fisher shay some mute ok misformat skeleton xitaa lafaha dadka weyn inuu noqdo jiljileec qofku isma qaadi karo jirkiisa ma qaadi karo daal buu dareemaya lafta dhabarka iyo waxaana inuu burbur ka dareemo ama xanuun lafta hoose waxyaalahaas oo kale ok ben of weakening xitaa lagu oo kala sidii noqda kala jeesado si kala noqda marka voxna dadka waaweyn D-vitamin waa u muhiim sida dadka ku yar marka dhashaan xagga Sweden wax la siiyo vitamin D directly wax la siiyo hooyada ama abaa lagu lahaa ilmahaaga drop mar walba dhibic afka ku sii marka waa wax u muhiim nolosha marka adigu aad joogtid Sweden inuu muhiim yahay wax ku ganacsiga weeyaan wax ka soo qaaday media oo kale median diskuteerad om D-vitamin breast oo ka riskan fortsmith of all iller for COVID-19 khugdum badana way ka hadleen ingiriiska ugu horeeyay wax ka hadlo vitamin dadku u qaybiyay wala vitamin D
waayo wuxuu difaacayaa moon phosphorate inuu difaaca jirkaaga dhiiga difaaciisa xoog weynaanaya markuu vitamin D aad qaadatid marka qofkaana qaadan ama jirkiisa aanay ku jirin vitamin D fiican risk buu ku noqonaya qofku inuu ku dhaco cudurka COVID-19 marka waa muhiimadda garanaytaa symptom u badanaya qofku daal buu dareemi karaa wuxuu dareemi karaa caajis wuxuu waxa weeyaan spaghetti blunt verk iyo muscular oo ofta symptomatica iyo waxyaalo badan oo ku saabsan maxaan ku lahaa dhabarka landriga back lower pain iyo vitamin D ka waxyaalo adigu wadaan soo qaadano kulley anu wax inta yar ba soo qaatay laakiin inta badan anu soo akhriyay waxaas oo dhan ka badan ma garanayteen waa waxyaalo inta ka badan weeyaan caajiska muscularka wuxuu murqaasha qofku xanuunayo qofka moodkiisu yaraa isbedelo iyo saas oo kale marka xitaa cuntooyinka qofku qaadanayo oo kale waa vitamin D kulley qofku kalluunka waliba anu hilib badan baa cunaa laakiin kalluunku iyo caanaha iyo muhiim iyo ukunta beedka waliba meel baa ka soo qaatay anu videoga waa daawan doonaa vitamin D-ga farmiska qofku uu ka heli karaa waa tio microgram iyo 25 microgram iyo 50 microgram marka dadkeenan maadaama nahay afrikaan jirkeena waxa uu ka sameysanayaa inuu u adkaysto adceedda xoog weyn xaggan adceedeedu ma qabato jirkeena marka goormuu dhismada vitamin D-gu jirka ka dhismada marka adceeddu jirka ku dhacdo subag buu sameeyaa vitamin D oo kala marka jirkeena midabka sare ba adag ma qaadan karo adceedda suulin gudaheeda dadka badan waa dhulkeena ku nool waa adceedeenu waa adceed kulul marka uma baana qofku inuu qaato vitamin culus marka dhakhtar baa la taliyay dadka badana inay qaataan boqolkiiba 50 microgram marka waa ka heli kartaan qof walba farmasiga apotheca tago uu helaya tabletka vitamin D waxyaalaha kale matalan oo kale imika waxaan gelaynaa xaggan oo ka leaves medal sparket oo D vitamin ka hadlaya D vitamin ku suu yahay iyo hurfo as D vitamin wax ku leeyahay cuntada builds up vitamin D hubudatna VR uti oxo iyo cuntada iyo dawladda marka nahay joogno xaggan waxa ku qoran daada iyo intuu qofku cunayo baan iyo voxon undul khotofam iyo waxyaalaha marka waxa qaadanayna video yar oo gaaban oo ku saabsan D vitaminka ninka dhageysan loo Soomaalida laftooda la soo hadal qaadaya sababtuna wax weeyaan dhibkana haysta anagu maadaama dumarku badan guriga dhex fadhiyaan badankoodu xijaabna marka xidhaan xijaabka mudin inay tuuri doonaan yaan la tuurin qof xijaabkiisa xidhnaado laakiin vitamin D-ga uu habadsado wax kale ma marka dhageysano. Jag tänker också på, vi är nu en mycket mer blandad befolkning än vad vi var förr i världen. Och då finns det studier på bland annat somaliska kvinnor i Borlänge, berättar du för mig. Ja, alltså det är en distriktsläkare i Borlänge som har intresserat sig för det här och han har sett att muskelstyrkan påverkas hos de som har lägst nivå på D-vitamin. Så att det finns faktiskt ganska många i Sverige som ligger så lågt i D-vitamin så att de har svårt att röra sig naturligt. Och vad beror det på, att de har mörkare hy och behöver ännu mer solljus? Ja, alltså det är flera saker som är risk för D-vitaminbrist, och det är att man undviker solen av olika skäl. Det är ju många med svensk bakgrund som gör, för de tror att det är farligt med cancer och så vidare. Och sen om man använder täckande klädsel så att man inte utsätter någon del av huden för det här. Och dessutom om man har mörk hy så krävs det längre tid i solen för att bilda samma mängd. Så att vi har risk. Salaam gabadha wax ka hadlay Burlanga magaalada Safari kamid ah Soomaalida ku nool in dib ka haysato xagga vitamin D breast marka wuxuu leeyahay doctor markuu wadiiyay dad baa ka baqda cadceedu ka salbay keenaysa dadna dibadda isku dhigaan cadceeda marka ama huudkooga wax weeyaan jirkooga sare jildigooda adag oo madow macnaha adag macnahaan oo aan qaadanayn cadceeda oo aan sameeyay vitamin D adoo markuu hadlayo doctorku laftiisu soo program kale ka hadlaya oo ka sheekeynaya taalifteeda
oo intuu qofku qaadanayo matalan oo kale vitamin D. Sen, men alltså det där behövs för att behålla sommarnivåerna. Det är det som är poängen. Och den andra stapeln. Medan Livsmedelsverkets rekommendationer, det är ju det som krävs för att man inte ska få skelettmissbildningar av D-vitamin. Men vill man stärka immunförsvaret och skydda sig mer så behöver man de nivåerna. Precis. Vi kan bara titta innan vi växlar här. Den sista stapeln är D-vitamin. Det är ofarligt upp till den nivån som du sätter där. Precis. För det har ju kommit synpunkter när du var här en gång förut. Är det här farligt? Ja, absolut. Och det är ju så att det finns fall som drabbas av D-vitaminförgiftning. Man kan alltså få för mycket D-vitamin. Men då krävs det ju långt över de här doserna som anges här. De flesta fall som jag har hört talas om har tagit kanske... badana marka ku hadlayo ninkani D-vitamin wuxuu dhibay qofku keenaysaa inuu hadduu cuno dooso culus macnaha toban soo qaadan waxay 10 microgram iyo 25 iyo 50 microgram marka dooso culus qof markuu cuno macnaha wax ka badan 50 dhibay u keeni kartaa waa inuu qofku intaa fahmo weeyaan marka qofku hadduu doono dhakhtar ku tagaya uu eegaya hadduu qofku iska dareemo waxyaalo badan dhabarka xanuunka muruqyaasha dhabarka qoorta gacmaha daal badan oo caajisa qofku moodkiisu isbedela waxyaalo badan oo moodka xitaa ku xiran oo ku saabsan baa jira for example qofku wuxuu ka helaa cadceeda hadduu qofku isu dhigo ama vitamin ama cuntadaas ila aragnay marka kalluunka iyo beedka iyo caanaha iyo subaga qofka hadduu dhib ay ku tahay inaanu haysan D-vitamin wuxuu noqonaya difaaca jirkiisa yaraanaya ilkaha lafaha mood oo qofku galaad buu noqonaya hadduu nacamti jirkiisa ku jiro galaad haddaanu ku jirin uu ku yarayahayna qofka moodkiisu galaad maaha waa yabaal socda ama wuxuu qaadayaa yara xanuun indhaha xitaa sida uu aragno muruqyaasha lafaha jirkeena sare iyo saas oo kale marka intaa weeyaan inta doonayna maanta inaan la qaato aad iyo aad baa salaamtiin waana Rashiid Jaamac